ciidamada hiil walaal dalka Djibouti ayaa maanta deeq daaweyn ku wareejiyay maamulka guud isbitaalka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. qodobkaasina waxay noo qaadan dhigay wariyahana Cabdinuur Ismaan Aadan Carab. dawladda aan walaalanahay ee Djibouti ayaa maanta deeq daawo ah ku wareejisay maamulka guud ee isbitaalka magaalada Beledweyne, waxaana wareejinta deeqdan goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Ismaal Cali. ugu horeyntiina waxaa deeqdan faahfaahin ka bixiyay kumaadi Cismaan Kuurshiyo Xoorshow oo ku hadlayay afka saraakiisha ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Beledweyne. deeqatibiday AMISOM sector 4 ay AMISOM soo dirtay laanta simiga ay u soo dirtay dhakhtarka gobolka Hiiraan. anigu waxay soo wakiishay taliyaha ciidanka Hiiraan jooga gobolka Hiiraan sector 4 kolonel Cabdiraxmaan. waxaan caawimaadana waxay ka qoodan tahay qalab dhan oo caafimaada min ciyaal ilaa dadka waaweyn. taanna maanta uguma horeyso, weligeenba dhakhtarka Hiiraan waan garab joogi doonaa. iskaashigu waa wax soo jiray. intaa kadib isku dugaha caafimaadka gobolka Hiiraan iyo agaasimaha cusub ee isbitaalka magaalada Beledweyne ayaa ka mahad celiyay deeqdan. waxaa deeq daawo ah naga soo gaartay walaalahayn hiil walaal Djibouti ama AMISOM sector 4. daawadaasi oo aan loogu talagalay dadka reer Hiiraan oo xanuunsanaya ama jirooyinka kala duwan qaba. runtii isbitaalka wuxuu aad ugu baahnay daawadan, waxaana la keenay xilli oo isbitaalka uu aad ugu baahan yahay. suugta waxaan u mahad celinayaa sida maanta la iskugu howlay hawshan walaalahayn in soo gaarsiiyeen ayagoo aad arkayseen in dawada ay garabkooda ku soo qaadayeen, baabuurka ka soo dejinayeen, ayaga ay soo rareen, ayaga ay dejiyeen. deeqdan waxaan soo gaarsiiyay walaalaha Djibouti. waxaan leenahay mataqaana walaal waan ka gudoonnay, waan ku mahadsantihiin. ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Ismaan Cali ayaa sheegay in dawladda Djibouti ay markasta ay garab taagan yihiin shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. hadba baahida markay ogaadaan noocay tahay, hadday raashin tahay, hadday biyo tahay, hadday daawo tahay, markay baahida ogaadaan horey ka keenaan. marka baahiyaa jirtay fatahaadii sidii looga soo noqday isbitaalkan daawo ma helin. hadda daawooyin noocyo badan isugu jiraa la keenay oo qaybta carruurta iyo qaybta dadka waaweynba. aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa dawladda Djibouti, shacabkeeda, baarlamaankeeda dhammaan waa mahadsantihiinaan leenahay. deeqda aad maanta noo keenteen, deeqdan waxaa si toosa igu wareejiyey gaashaanle Cismaan igu wareejiyey. lama kala maqna. waxaan idin sheegaynaa in daawadii aan idin kala wareegnay isbitaalkiina gacantiisa ku jirto. usudwaana soo ballan qaaday meesha loogu talagalay baahida isbitaalka ka jirto asagana inuu ku bixi doono. Cabdinuur Ismaan Aadan Carays, Waddan Radio and TV, Beledweyne.